maantana waa 21 jir doonaya in uu sameeyo bandhiga ugu halista badan. gacanta ayaa la geliyaa kadibna si dhaqsi leh ayaa looga soo saaraa isagoo afka kala haya. intaasi kuma eka. yaxaaskani ayaa loo tababaray oo keliya si xawaare ah inuu ku qabsado. waa markii ugu horeysay ee uu ninkan soo bandhigo ciyaartan. si cabsi la'aan ah ayuu afka hoostiisa riixaya si uu u daboolo afkiisa. gacantiisa ayuu ruxayaa isaga oo soo jeedinaya daawadayaasha bandhiga. tababaraha waxa uu eegayaa wiilka iyadoo si taxaddar leh u tijaabinayo yaxaaska markii ugu dambeysay isagoo si xoog ah u taabanaya jirkiisa. waa markii afaraad ay uu wiilkan sameeyo tijaabadan. welibana diyaar ayuu u yahay bandhigan weyn. laakiin tani qayb kama aha bandhigan. saamaynta burburka lafaha waa halka dhibaato ee naxdinta leh. yaxaaskan xanaaqsan ayaa markiiba waxa uu sameeyey xirfadda u gaarka ah ee wax uu ku dilo. duurjoogta yaxaasyadu waxa ay u adeegsadaan xirfaddan si ay u kala jebiyaan ugaarsigooda. shil kale oo naxdin leh. gabadhani waa gabadh Soomaaliyeed. waxa ay isku dayaysaa in ay ka gudubto wadada. mar walba ay isku daydo in ay gudubto gaari ayaa soo galaya. ugu dambeyntii waxa ay go'aan ku qaadatay in ay gudubto. ilaahay amarkii ma aysan ka badbaadin shilkan. si fiican indhaha ugu hay ninkan. waxa uu doonayaa in uu daawadayaasha tuso dhacda la yaab leh. waxa uu ku indhasarcaadinayaa xayawaankan halista ah in uu la ciyaaro. laakiin wixii ku xigay uu sameeyey waa waali. si aad ula socoto barnaamijyo kale oo ku xiiso geliya fadlan like saar, follow dhe, si first ku dhufo mahadsanid.